ninkani taa dimashigi waabe ninkaas sidoo soo dhigay maxaa soo qaban karnaa wuxuu qaadaa ninka markuu ninkii diido qoriga anaa ka qaad asiga anaa wada qorgaygana anay xabad ma ii raacsaneyn mudug gudoomiye meesha fadhiyay asaga wuxuu ku fadhiyay koolbaha salkiisa sawiranta walaal koolbaha zakari waxaa lagu haystaa inaad maxamed nuur maxamed oo shaqaalaha nadaafadda ka mid ahaa aad meeshii uu ka shaqeynaya ugu tagtay aflagaade iyo xabadna isugu dartoo dishay taasaa lagu haystaa ma gashay dembigaas mise ma geli mise doodaa ka qabtaa toosale ayaan ka qabaa zakari doodaada caddayso haye nuuna garsoore aniga waxaan joogay goobta shaqada agaasiga waxbarashada oo ka banaadir shaqada waxaan lahaa birmada hore marqabkay ilaa 7 saac shaqadan waxaan ku qornaa koolbaha saa u saarnaa waa ka soo tagay badar waa meesha ku cunaa badarka u soo deganay waa casheynay meesha askari ila jooga xasan la dhaw meesha gala tirsanaa waxaan ku yiri xasanow koolbahan fuulaya saxaw qorigaada ii dhib qorigiisan qaatay koolbaha markaas u fuulay aan madaxiisa gudi hadal maqlay 4 qof halisay waa la hadlay way maqlay waayeen waa soo degtay waa oo mid 3 gabdhood ma 2 gabdhood iyo wiil yana ka dhimanay 4 saac waa mid ku goobtan 6 saac iyo 40 daqiiqo way habeenimo goobtan ka taga shaqo kuma leedin wala ilaaliya waan ogtiin marka ninka dhimanaya ma aqaan laakiin gabdhaha 2 gabdhood yarka waa aqaan 2 gabdhood yarka ayaba dhinaab waa iga tageen ninkii kala soo haray meesha waxaan ku saaco shaqan kale 3 qof kula socotay waa tagtay ka goobtan kama tagay askarigii qoriga lahaa ka soo qaaday in yimid la hadalna ku yiri xasan ninkan waa naga diiday war aniga qoriga kuma qorneen mana lahayn xabadna ma gashan waraar naga tagan ku yiri naga tagana dhaan qoriga xabad ma gelin ninka xabad saas ugu fakatay goobta ugu tagin waa kolba hoostiisa meesha ugu yimid 3 qof la socotay waa iga tageen asagan 4 ku ahaa asaa kiisku dhac ma garsoore habeen eed ma eed habeen beed 6 saac iyo 48 daqiiqo oka goobta ugu tagin muxuu taasi markaas maxaa 4 qof hayeen meesha fadhiyeen asaga wuxuu ku fadhiyay koolbaha salkiisa sawiranta walaal koolbaha salkiisa bas u fadhiyeen waa oo mid waxa weeytaan hadda ma xasuusto laakiin wax ahuba ma wadeen laakiin waxaan ka tagay 3 qof meesha ka tagay asaga waa iga diiday ana murman askarigi shaqada aan saarnaan soo ku jira yimid wuu la hadla meeshan waa dhaba ilaahay waxaan hayn bino dhaaf waay wadaba ilaahay waa taa walaal shaqan ka haysan markaa wada ilaahay meesha kaliya wada ilaahay kuma soo koobine ka tag 3 qof kula socdo kaasi socotee gabdhii iyo cunugii waa soo fiirinayaan asoo ninkii soo eegayeen qoriga aniga malaan marka xabadin ku jira ma ogeyn markaas ashayna ka soo qaaday koolbahan fuulistan fulan hadalka maqla naga tagadan ay ninka saxaabada ugu dhacday boos soo uma tagin waxba isku maan hayin ma aqoon naga tag marka waxa ka wadamay maxaa u leedahay naga tag ya meesha ka tagtay ninki iyo macna waru ka diiday saxawna dhaafa ay saas kiisku dhacmo garsoore maragyo ku sugnaa goobta dilka uu ka dhacay ayaa maxdarkan garsoorka ugu sharaxay sida falka uu dhacay iyo arinta la isku haystay ee uu diidanaa eedeysanaha see wax u dhaceen waxay wax ku dhaceen aniga ninkan shaqo u saaray anna waxa shaqada ka bedelayay 7 saac gudaha ku jiray marka meesha waa albaab oo soo xiraa waay duulna waxa ku yaalo kolbaardi oo banaanka looga jeedo marka sida oo ahmaantii oo kale saxmada badan wax ma laga arkaa laakiin habeenkii markii la gaaro dadku way kala hooyaa qof ku joogto meesha aniga buuqa maqlay banaanka waa baxay banaanka tagay markaa tagay buuqa ninkan waxa tagay ninkan murmaan 4 qofood amal noo yaag taagna la jirta asay la jirta marka ninkan hadal isdhaafsan aniga waxa uu miday inaan ninkan kala dhaxdhaxaadi moogtaa ninkana qoriyo ninka ula baxay xabadu mariyay marka aan qoriyo ninka usoo uga qaaday waa waday irdaagiyay oo meesha laga shaqeeyay waxa uu soo baxay askarta askari kamid ah oo hadda ila joogo salaad dhaho uu yimiday qoriyo wuxuu la qaaday ninkii gudaha isku galnay marka saas wax u dhacay gudoomiye asaga ciidanku ka tirsan miya ciidanku ka tirsan yaa markii waardiye habeenkaas yaa heeganka saaray u taliy kooxda meesha shaqada qabanaysa tale unugu ilaa meesha laakiin tale unugu xilligaas 7 saac ku dhawaad heeday shaqada anigoo ku xigay oo 7 saac ay ku dhawdaay oo shaqada aniga rabay inaan ka bedelo inta waqtigii la gaaray anigu waa diyaarsanaay waa u taagnaay dhacda saas ku dhacday inta la gaaray waqtiga tale unugu joogo jiif marka oo falka dhacay kadib yaa ninkan xiray ninkan tale unugaas oo kacinay askarta markay timiday taliyaal soo kiciyay wuu yimiday saldhiga la wacay sida lagu wareejiyay qoryaha ma lagu kala qorro waa lagu kala qoray laakiin suu sheegay qaata qoray aniga wax oo lagu dilimay aniga yaa iskale salada iskale ninka asi qorba ku qorro asi qorigiisa uu ku qoray ma ogolus uu qolku ugu jiro arusanaa
ciidanka markii ciidanka meeqa sana ciidanka wati sintin asiga isku difaac ma tii maya waa uga dambeeyay asiga dafcadda uga dambeeyay waa dadka maxay ku murmayeen dadka murmaya asiga qofka oo la murmayo iyo asiga maxaa la isku haystaa meesha ka soo ay ka soo kulli isku haysta wax kale oo inta soo gaaranay mulka adiga ma arki jirta qofka dhintay ma taqaan maya hore ma arag aniga laakiin sano meesha ka shaqaaleyshay ka bacdi aa la ishay ma aqaan jirin laakiin intaas waqtigan meesha dhiwaanay marka meesha tagaysay meel qof ugu tagtay oo meesha ka shaqeynaysa oo meesha aniga ka shaqeeyno labadana isla joognaa ama meesha oo dadka wiilka ku shaqeynaya oo u tagteen adi aniga ninkii aba ku mashquulanay laakiin afar qof amal meelaas yahay saaqaasta idinka markii meesha wax ka dhacay baa kala ordan meesha ma joogo akhirtii meeqa xabadoo ridaysana laba xabadoo riday waxa farqada ah labadooda ma qaaday macnaha dadka gurmadka u sameeyay ma ku jiraa oo macnaha ma isku day inuu qaado muxuu qaadaa ninka markuu ninkii dib qoriga anaa ka qaad asiga anaa waday muxuu qaadan oo inuu fakad aana ka cabsanaysa inta aysan uun falku dhicin 4 qofood ay ahaayeen 3 ka mid ah baxday marxuumka ku soo haray meesha Soomaa marxuumkii waxa soo haray eedeysanaha oo kala waardiyaha saaran Soomaa marxuumka iyo mugu dhisan waxa lagu soo horay muunka inta murugu taagnaayba waa la wada taagnay markii wixii ninka uu ninkii dilay le aabada kala ordan le maan inta kale wala taagnaaday inta kale waa isla taag waa la sajiray laakiin ninkii markuu xabada ku dhifto ordan dadka qoriga falka lagu geystaa askala Soomaa maya ay intee ka shaqeysaa waa la isdacweynahay ninka odaga ma taqaanaa say wax u dhaceen ninkan tari waa asgariyaan isla nahay booliska isla nahay birmadan isla nahay hal meel iskala shaqeynaa waa agaasinka waxbarashada gobolkan iskala shaqeynaa marka waxa dhacday in habeen asagoo waardiye birma ah saaran ayaan aniga waardiyaha birmadan ku wareejiyay birmada markaan ku wareejiyay markaas wuxuu sameeyay in birmada markaan ku wareejiyay markaas aniga shaqada 6 saac aan soo koray birmadan ku wareejiyay 10 saac oo habeenimo lahay shaqada 2 saac marka la gaaray waa iska seexday habeenkii 6 saac iyo markii loo dhaw meelahaas cam markii la maraayo xabada maqlay mudane gudoomiye xabada markaan maqlay markii hore aniga ma sharaysanin bacdeen waxa yirtay qaylo oo banaanka ah qayladii banaanka ayaan ku baxay markaan banaanka ku baxay waxaan arkay yarkan oo sheeg oo isbatoore ah iyo yarka oo xasuur daay ah oo labadooda waardiyaha kala bedelanay oo macnaha ninkan oo garbado dhahayo laba qoran ay xagga taalo oo dhahayo macnaha ninkan inuu dilay ninka uu dilay waa ka saaxag uu yaala 15 tilaab camal ninkii miya oo dhintay oo ii jiray markaas soo fiirshay labada qorayaan qaaday waa la xareeyay askari kale asigana joogo oo meesha imaado abba la dhahayo oo aniga meesha nagala tirsan ninkiya sida lagu xareeyay iyo yarkan ka bacdi tali unugan toos ugu tagay waxaan irin ninkii oo isbatoor ahay yaroo dilay ee soo bax tali unuga sidii uu ku soo baxay yarkana loo imaaday yarkan isbatoorana asiga kulay tali ku xigeenka saldhiga oo wacayba oo soo dhahay ninaan xabad igaga dhacday marka tali iimow marka xamarweyne iyo taliski oo meesha ah oo kuwii oo joogay sheega oo tali unuga meesha nagala tirsanay hal mar la isku wada ninkan tali saasi wax u dhacay markii xabada dhicayso qofka dhimanaya waa jiifsamay waa hurday waardiye 10 saac oo soo ka carabay markaan banaanka u soo baxana waa arkay meeshan wax ka adiga goorma wardiyaha leh qoriga u dhiibadin kan mudane gudoomiye yarkan qorigiisa waxa waaye qoryaha oo laga keenay Masar wax harbina ma lahayn garkana waa ka go'nay mudane gudoomiye markaan birmada aan ku wareejiyay oo dhahay qoriga ii reeb hal qol aan isla deganahay labadayna sir waa isku degantahay hal qol aad degantii hal qol aan isla deganahay sidii aan qoriga ugu reebo marka maadaama oo qolada oo habeenkii sulsaarka ay imaahayaan qoriga garka ma la gashay karo mudane gudoomiye saas qoriga gar oo lahay si oo gadaal u xajisto baarti sida gar la'aan ah miya gar la'aan oo ay harbina ma lahayn kaaga gar la marka kayga gar lahay mudane gudoomiye xabad uusan ogeena u raacisay xabada ii raacisay u leeyahay xabada aan imtixaan inay raacsanta u leeyahay mudane gudoomiye waa ku wareejiyay maqribkii markaan meesha ku dukaday markuu shaqada uu igala wareegayay waa u sheegay wax walba oo sameystay mudane gudoomiye qorgaygana aniga xabad ma ii raacsaneen mudane gudoomiye xabad ma raacsaneen ma ii raacsaneen mudane gudoomiye marka oo seexanaysa isku xigtiin miya marka adiga qoriga adiga degaysa ma asaga